tiro Soomaali ah ayaa la sheegayaa in ay ka mid yihiin dadkii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus ugu dhintay dalka Sweden ayaa cudurkan laga helay dad ka badan 2,000 oo qof halka dhimashadu hadda ay kor u dhaaftay 30 qof. Jacfar Kuukay ayaa wararkan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ah wariye ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. aad u mahadsan tahay Jacfar Kuukay wadanka Sweden cudurkan ilaa ay hadda dad aad u fara badan ayaa laga helay oo qaarkood cisbitaalada u jiifa tirada guud ilaa iyo maanta waxay maraysaa 2,100 guud ahaan tirada u dhimatayna waa ilaa iyo 33 waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada Stockholm kaliya 15 qofood oo ku dhimatay in 6 kamid ay ahaayeen Soomaali sabab la xiriira in wacyigelintu ay aad u yareed marka guud ahaan marka la fiiriyo wadanka Sweden hadda aad u kala xiran yahay wadankii garoomadii waa la xiray iskuuladii waa la joojiyay inkastoo wali xanaanooyinkii iyo iskuulaadkii hoose ay wali furan yihiin haddana waxa aad u yaraada dhaqdhaqaaqyadii kala duwan aad u yaraadeen oo waxaad moodaa wadankuba inuu ku jiro xaalad emergency ah 3 qof baad ii sheegtay guud ahaan wadanka inay ku dhinteen marka laga soo tago Stockholm kaliya oo 6 qof oo Soomaali ah ay ku geeriyoodeen guud ahaan wadanka tirada Soomaalida ah ee xanuunkaasi u dhimatay ilaa iyo hadda inta la og yahay intee bay la egtahay wallahi Jacfar horta aad u adag tahay in tirada rasmiga ah la ogaado laakiin ilaa hadda sida hadda xogta aan ku helayno waa ilaa iyo 7 ilaa iyo 8 ayaan ku helaynaa inkastoo dadka qaarkood dadka cudurrada u dhinteen intooda badan waa dad waayeelo ah dad xanuuno kala duwan qabeen qaarkood cisbitaalada iyaga ayaa u tageen ama cisbitaalada hore ugu jireen iyagoo qabaan xanuuno kala duwan habog badnaadeen ragga u badnaadeen inta dhimatay Stockholm oo kale Soomaalida tiradeedu intee bay la egtahay ma aad bay ugu badan yihiin run ahaantii Stockholm aad ay ugu badan yihiin Sweden dhan waxa la sheegaa ilaa 9,000 inay degan yihiin Stockholm ilaa iyo ugu yaraan 30,000 waa degan yihiin oo Soomaali ah xaafadaha Soomaalida ay ku badan yihiin ay hadda dhaqaatiirta warbixinta ay soo saareen xalay ay ku sheegeen inuu ku badan yahay xanuunka dadka qaba marka dhibaatada waxa ay ku jirtaa wacyigelin la'aanna waa ay jirtaa oo dadku inay u hoggaansamaan maxaa la leeyahay marka wacyigelin la'aanta waxay keentay Soomaalida in ay sidoodii hore isaga dhaqmaan oo maqaayadihii iyo goobihii ganacsiga ay furan yihiin oo dadkii ay isbooqanayaan oo tacsidii la wada tagayo sidaana uu cudurka ku sii faafayo warka ma jira aad warkaas uu jira inkastoo dadku hadda wacyigelinta horta inta wada wacyigu wuu gaaray oo dadku way ogyihiin dhibaatada cudurkan uu hayo haddana waxaad moodaa in meelaha qaarkood ay aad u liidato informationka inaysan dadka isu gudbinaynin booqashadii ay jirto maqaayadihii qaarkood dadka isugu tagayaan inkastoo masaajidadii la xiray maqaayadaha qaarkoodna la xiray haddana weli dhaqankeennii waa wadanaa saameyn noocee ah ku yeelanaya Soomaalida ama jaaliyada Soomaaliyeed ee Sweden degan warkan la xiriira in tira inta la ego Soomaali ah uu dilay xanuunkii kuwa kale oo fara badanna ay hadda la ildaran yihiin oo ay qabaan ma laga yaabaa arintaasi in ay dhibaato kale ku keento Soomaalida wallahi horta walwalka ugu weyn oo horta jira waxa uu noqday oo Soomaalidu ay ka walwashay in Soomaalida si gaar ah loo karantiilo dad badan reaction ama falcelin ka sameeyay warbixinta soo baxday warbixinta horta waxa soo saaray urur dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ayaa soo saareen warbixintan marka dad badan falcelin ka sameeyeen oo yiraahdeen inaad carabawdaan ma ahayn mana qurux badneenin sababtoo ah waxa dhici karta in dadkii Soomaaliyeed ama area-da Soomaalida la deganaa in la karantiilo la yiraahdo waa qof kasto Soomaali la arkay in laga cararo marka laakiin marka dhinaca kale loo fiiriyo waxay u muuqataa inay tahay wacyigelin in hadda hurdada laga kaco oo la isabaabulo dadku guryahooda ay ku nagaadaan dhinaca kale marka loo fiiriyana waa wax wanaagsan in dadku wacyigooda ay hurdada ay ka kacaan dhinaca kale marka loo fiiriyana dad badan waa ay ka falceliyeen aadayna uga xumaadeen in si gaara farta loogu fiiqo inkastoo dad badan ay ku dhinteen oo meelo kala duwan ah waxaad ii sheegtay in tirada Soomaalida Sweden ku dhaqan ay aad u badan tahay marka suurtagal ma tahay in tiraduba ay intaa ka badan tahay laakiin weli aan warka arintaas la xiriira aanu dadka wada gaarin tirada dhimashadu u malaynayo inuu intaas ka badnaa karo waayo Soomaalida aad ay isu taqaanaa
haddii fal dhacana waa la iska warhayaa oo muddooyinkan waxaad moodaa in social media ama isticmaalkiisu inuu aad ugu badan yahay laakiin waxaa aad u yar wacyigelintii runtiina wacyigelintiin way socotaa hay-adihii iyo ururadii bulshadii dadkii o dhan way ka wada shaqaynayaan in dadka guryahooda ay ku nagaadaan qofkii isku arko astaamaha xanuunkan inay guryahooda ay ku nagaadaan waayo waxaa aad loogaga cawda dad badan oo astaamihii isku arkeen oo waxaa la arkay bulshadii soo dhex galaya iyagoo qufacaya iyagoo xanuuno qaba qaarkood waxay u haystaan inuu wuxuu hergab uun yahay laakiin hay-adaha caafimaadku waxay ku talinayaan xataa haddii uu hergab yahay ha u keenin dadka nugul waayo dadka ugu nugul cudurkan waa dadka waayeelada ah ama dadka xanuunada qaarkood qabaan markan wacyigelinta marka waxay tahay in la isu naxariisto oo qofka astaamahan isku arko inuu gurigiisa ku nagaado kaasi waxa uu ahaa wariye cabdiraxmaan xudayfi oo u waramayay Jacfar Kuuka.